Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Deg-Abiy ayaa kulan la qaatay ergooyinka Soomaalida ee laga soo xulay dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Ergooyinkan oo tiradooda lagu sheegay 700 oo ergooyin oo laga soo xulay 12 gobol ee ismaamulka dawlad deegaanka Itoobiya. Kan oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaan wax rasmi ah laga soo saarin se waxa ugu badan ee laga hadlayo ayaa lagu saadaalinayaa waxa ugu weyn isbedeladii waaweyn ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyadoo ay ka dhaceen ismaamulka Soomaalida Itoobiya muddooyinkii ugu dambeeyay isbedeladii ugu waaweyn ee deegaankaasi ka dhaca muddo ku dhow 10 sano. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Deg-Abiy Axmed ayaa muddadii uu xafiiska ku dhaqaaqayay isbedelo aad u waaweyn oo hore uga dhicin dalka Itoobiya gudihiisa. shirkan waa kii ugu horeeyay ee tiro ergooyin Soomaali ah. Ra'iisul Wasaaraha Kulan kula yeeshay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya muddadii uu xafiiska joogay. Waan Axmed Bulsho TV.